aynu ka badbaadino ehelkeena iyo bulshadeena xanuunka corona dhammaanteen waynu ku lug leenahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maanta muuqaalkan kooban waxaan uga hadli doonaa waa maxay sara fayrasku. saruhu ama fayrasku waa unug yar oo ilmi qabati ah kaasoo aan lagu arki karin isha balse ay dadku qaadi karaan kuna sababi kara hargab ama cudurrada neef mareenka ku dhaca hadduu jirka galo. waa maxay fayraska corona? magaca saraha corona waa nooc ka mid ah saraha oo aad u khatar badan waana mid u eg sida kubadda oo kale dushana wuxuu ku leeyahay muuqaalo sida geesaha weeg oo fara badan. saraha corona wuxuu ku dhacaa xayawaanka kaasoo u kala gudba xayawaanka iyo dadka sanadkii 2019. saraha corona waa mid si fudud la isku qaasiin karo waxaanu faahfaahsi dhaqso ah isagoo iskaga gudbaya qofba qofka kale. sarahani wuxuu ku dhacay in ka badan 10 milyan oo qof oo ku nool wadamada adduunka kaasoo sababay cudurka la yiraahdo COVID-19. haddaba COVID-19 maanta waxaanu uga hadli doonaa sida ay fayraska corona ugu gudbaa dadka dhexdooda. saraha fayraska corona waxa lagu kala qaadi karaa marka qof uu ku dhacay xanuunku uu qufaco ama hindhiso isagoo aan nafkiisa dabooleyn. sidoo kale waxa laga yaabaa in si fudud looga qaadi karo marka uu hadlayo dhibcaha ka soo baxa afkiisa qofka ku ag fadhiya ama kula jooga. marka uu hindhiso ama qufaco waa qaar aan indhaha lagu arki karin balse waxay si fudud u sabayn karaan hawada kaasoo qofba qof kale markuu neefsado u gudbaya ama uu qaadi karo. dhibcahaas ayaa sidoo kale ku dhici kara meelaha uu qofku u hindhisay ama ku qufacay dushooda. marka uu qofku taabto meelaha ay dhibcahaasi saraha corona ay ku dhaceen kadibna uu qofkaasi taabto indhihiisa sankiisa ama afkiisa saruhu wuxuu geli karaa jirka qofkaas waxaanu sababi karaa inuu ku dhaco xanuunka COVID-19. sidoo kale waxaa laga heli karaa saxarada dadka xanuunka ku dhacay waana laga qaadi karaa haddii aan laga taxadirin marka la isticmaalayo musquulaha dadweynaha iyo haddii aanad si wanaagsan ugu meedhan si taxadir leh saabuun iyo biyo gacmahaaga. daawade maxaa dhaca marka saraha corona uu galo jirkeena kadibna uu inagu dhaco cudurka loo yaqaan COVID-19? calaamadahan lagu garto waxaa ka mid noqon kara daawade kuwan soo socda: qufac badan oo qallayl ah, madax xanuun, cuna xanuun iyo qandho iyo xumad, neefsiga oo yaraada, dareenkiisa guud ee caafimaadka oo cidhiidhi gala, urta iyo dhadhanka oo luma. dadka qaar marmarka qaarkood waxa uu sababi karaa xanuunada neef mareenka ku dhaca sida qof wareenka ama xanuunka hawo mareenka sanbabada ku dhaca. si kastaba ha ahaatee dadka qaar isagoo ku dhacay xanuunka COVID-19 haddana ma dareemaan haba yaraatee wax xanuun ah laakiin waxay ku fidi karaan oo ay u gudbin karaan xanuunka dadka ku nool deegaankooda. dadka uu ku dhaco badanaa xanuunka COVID-19 waxay dareemaan xanuunka maalinta koowaad ilaa maalinta 14aad. dadka intooda badan waxay xanuunka dareemaan 5 ilaa 6 cisho. dadka badankooda kama muuqdaan calaamadahan xanuunku. tan waa mid aad u khatar badan inkastoo aanay lahayn wax calaamado ah waxay qaadsiin karaan qoysaskooda, asxaabtooda iyo qof kastoo ay la xiriiraan. aad ay muhiim u tahay in la bilaabo talaabooyinka laga hortagi karo sida ugu dhaqsaa badan. sidoo kale waa in laga caawiyaa dadka kale sida ay taas sameeyaan ama ay u la iman lahaayeen. maxaa yeelay ma hubna in xanuunka corona uu ku dhex jiray bulshadeena markii horeba. waa kuwa dadka halista ugu jira qaadista fayraska corona. fayraska corona qofna uma tulo bani aadamka oo dhammi waxay ku jiraan khatar. haweenka, ragga, dhalinyarada, dadka da'da ah, dadka hodanka ah, maamulka deegaanka, dadka caafimaadkoodu wanaagsan yahay ama xun yahay, suldaanka, caaqilka, madaxda, ciyaartooyada, fanaaniinta, beeraleyda, xoolo dhaqatada, shaqaalaha, darawalada, ardayda, dadka Afrikaanka ah, Yurubiyaanka, Ameerikaanka. dhammaantiin waanu qaadi karnaa xanuunka corona. khatar waayo aragnimada loo leeyahay cudurka COVID-19 waxay tahay in cudurku yahay mid aad u khatar badan kaasoo sababi kara dhimasho gaar ahaan dadka ay da'doodu ka weyn tahay 60 sano jir ama dadka leh dhibaato caafimaad oo kale sida wadna xanuun, sanbabada ama kaliya xanuunka, macaanka ama dhiig karka. dadka aadka ugu nugul ama dadka isticmaala noocyada kala duwan ee maandooriyaasha sida sigaarka ayaa ah dadka khatarta ugu weyn ku sugan. kuweena aan raacin talaabooyinka ka hortagga fayraska waxay khatar gelinayaan nolosha waalidiinteena, ayooyinkeena, awoowadeena ama qof kasta oo aad ugu nugul xanuunka. ka fikir dadkeena waaweyn aynu jecelnahay iyo kuwa kale aad ka ugu nugul. fadlan raac tilmaamaan ka hortagi kara si aad u badbaadiso nolosheena. maxay yihiin talaabooyinka muhiimka ah ee looga hortagi karo ee u baahan yahay inaynu qaadano? mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo xanuunka COVID-19 waa inaynu gacmaheena si xadar leh ugu meedhno saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbiriqsi. haddii aan la heli karin saabuun marka aynu joogno meel ka baxsan guryaheena
waxaynu isticmaali karnaa biyaha sadhadila ah si aynu gacmaheena ugu nadiifino sadhaha. fiiro gaar ah, sadhaha corona waa mid aad u jilicsan. waxa kaliya ka ilaaliya sadhaha fayraska waa lakab aad u khafiif ah oo ku dul yaala qaybta dufanka leh ee jirkeena. tani waa sababta ay muhiim u tahay inaynu isticmaalno saabuun ama nadiifiye marka aynu faraxalanayno. xunbada ay samaysaa saabuunta ayaa burburinaysa sadhaha fayraska ku dul dhagan lakabka sare ee dufanka leh ee jirkeena. tanna waa sababta aynu u baahannahay intaan si taxadarna ugu maadna gacmaheena saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi ama in ka badan markasta. waa inaad hubisaa inay saabuuntu ay aad u xumbaynayso marka la meedho lakabka dufanka leh ee jirkeena. waxaa dhimanaysa fayraska corona. sida ayaynu maadhi karnaa gacmaheena si loo dilo sadhaha. gacmahaaga ku qabo kuqu biyo kadibna saabuun badan gacmaha mari. isdhexgeli gacmahaaga si ay saabuuntu u samayso xumbo badan. si fiican u meedh korkorooda iyo hoostooda gacmahaaga. si fiican u xoq farahaaga dhexdooda. si fiican u meedh cidiyaha hoostooda. gacmahaaga si fiican ugu xoq saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi. ku meedh gacmahaaga biyo. ku qallaj gacmahaaga tuwaal nadiif ah ama warqado nadiif ah soft iyo wixii la mid ah. waxaynu ku ilaalin karnaa qoysaskeena iyo bulshadeena inagoo mara ku daboolana afkeena markastoo aynu qufacno ama hindhisno si aynu uga hortagno inuu caabuqo ku faafo hawada una qaadsiin karno dadka kale. intaas kadib waxaa muhiim ah in marada lagu rido meesha qashinka lagu ururiyo. intaas kadib waa inaad ku meedhaa gacmahaaga saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi. marka aanad haysan marada wejiga lagu xidho waxaa muhiim ah inaad ku qufacdid ama ku hindhistid xusulkaaga adigoo soo laabaya. waxa kale oo muhiim ah in aanad taaban wejigaaga gaar ahaan sanka, afka, indhaha si looga ilaaliyo caabuqayna soo gala jirkeena. cidiyaha oo aad iskaga gurtaa waxay qayb qaadataa inaad sadhaha fayraska corona isku qarin cidiyaha hoostooda. markasta oo aynu nadiifino meelaha badanaa taabashadu ku badan tahay waxay qayb ka qaadataa in xanuunku yaraado. aad ayay muhiim u tahay in dhammaan alaabta guriga la nadiifiyo adigoo ku masaxaya saabuun iyo biyo kadibna ku nadiifi oogada sare ee shay kasta. nadiifiso dhitool iyo biyo muddada lagu guda jiro inta aanad wax daaweyn ama talaala looga hortago cudurka COVID-19 aan la helin. khubarada caafimaadku waxay ku taliyeen in dadku la waantoobin karo shirarka isku imaatinka si koox ah maxaa yeelay waxa ka dhalanaya khatar weyn haddii dad badan ay iskugu yimaadaan meel gaar ah isla waqti isku mid ah. waxaynu hadda ogaanahay in fayraska loo yaqaan corona uu muddo 14 maalmood ah inaga soo weerarayo meelo aad fogfog. khubaro badan oo ku takhasusay xanuunka ayay sheegayna guryaheena joogno marada wejiga ku xidhan waxa ay ku badbaadinaysaa aniga iyo adigaba wayna badbaadinaysaa. ku dhiirigali qof kasta inuu xidho marada wejiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.